موضوعا وحكاها الله يا بلش أراهد إلى بلش الريد from civil society from oral society to civil society موضوعا وحو سي جود وجهها للدونا Soomaalida waxa lagu tiriyaa inay tahay bulsho inteeda badan hadasho ama aan wax qorin afka Soomaaligana sida aan wada ognahay waxa la qoray 72 intii ku horeysay marka Soomaalidu wax qori jirtay maxay wax ku qori jirtay maxay tahay culumadii Soomaalida ee maaragtay xilligaas joogtay ama Soomaalida xitaa Soomaaliya aan jooginay banaanka aaday 1910kii ee wadanka ka baxay ee maaragtay wadamada galbeedka galay intooda badan maxay wax ku qori jireen sidoo kale buwaagta Soomaalida la qoray ee sheeko faneedka intooda badan caan ka noqday waxa laga dhex arkayaa ama laga dhex dheehan karaa inay si uun uga turjumayaan taariikhda Soomaalida dhaqanka siyaasadda iyo hab nololeedka bulshada Soomaalida si guud marka buwaagtaas la qoray oo hore oo ugu caansan yihiin sheekada Maanafaayo kale ayaan daran oo kale sheekooyinkaas caan ka baxay waxaad moodaa xilliyadii ugu dambeeyay ama jiilka hadda soo baxaya intooda badan inaysan soo saarin sheekooyin kuwaas lamid ah oo ka turjumaya wacyiga bulshada haday noqon lahayd heerka siyaasadda bulshada dhaqanka iyo xitaa baahiyaha ama maaragtay arrimaha ka dhex jira bulshada xilligaas la joogo ama xilligan la joogo waxaad moodaa arintii markii hore laga doodayay ee ah maxaa loo heli lahayaa da'yar Soomaali ah oo soo baxda oo jaamacadaha ka baxda oo bedesha narrative-ka Soomaalida ama si uun u challenge garaysa cidda Soomaaliya wax ka qorto haday noqon lahayd taariikh haday noqon lahayd maxay ahayd tooyay dhacdooyinka si maalinlaha u dhaca ama xitaa si kala hadaan iraahdo warbaahinta mawduucan waxa igu marti ah oo igala qayb qaadan doona Cabdullaahi Raage oo bidixdeeda fadhiyo iyo Maxamed Faatix oo fadhiyo dhankayga midig waxaan ku hormari doonaa Cabdullaahi Raage Soomaalida waxa lagu safeeyaa bulsho intooda badan oral society ah iyo weerar kale oo caan baxay isaga waxaan weydiin doonaa laba su'aalood oo ah nuxurka doodahaasi maxay yihiin iyo maxay saameyn leedahay maxaase qaldan oo maaragtay inta badan xagee intooda badan wax ka qaldan yihiin waxaad moodaa xilliyadii ugu dambeeyay dawladnimada xitaa maanta jirta inteeda badan inay hormuud ka ahaayeen inay ka qayb qaataan bulshada rayidka dawladii maaragtay carto dawladii Embakati ilaa maanta dawladda maaragtay dhisan aad mood inay laf dhawr u ahaayeen marka Cabdullaahi Raage oo ku magac dheer sayidka ku soo dhawow nuxurka doodaas oo kooban noo soo koob raalin noqo Cabdullaahi qof kasta wuxuu haystaa paneliska 15 daqiiqo idinkana waxa haysan doontaa 15 daqiiqo oo aad su'aalaha ku weydiintaan oo discussion-ka maaragtay qayb ka noqon doona soo dhawow horta sida su'aashu taalo waxa ka boodi doonaa taariifiyo ama qeexitaano badan iyo waxyaabo la mid ah iyo mataqaana inaan soo sirdino ama soo tirino waxa mawduuca laga yiri waqtiba ay qoraal dheer buu baahan tahay xataa haddii qoraal noqoto waxaan u gudbinaa nuxurka weeraha mataqaana caan baxa ee wax lagu sifeeyo cidaas waa sida qoladaas waxa si qabataa ama bulsho guud ha ahaato ama bulsho qaybteed ha ahaato ama qayb daaqda ku salaysan ama qayb genderka ku salaysan ama qayb ku salaysan mataqaana hab nololeedka ku salaysan ama qayb dhaqan dhaqaalaha ku salaysan qaybta doonta ahaatee qayb bulshada kamid ah lagu sifeeyo waxay ka turjumayaan waxaan oran karnaa waxay ka turjumayaan maxsuulka ama mataqaana mida wixii aqoon ama hadal ama fikrad laga soo saaray bulshada lagu turjumay yani weerahaas waxa ay xambaarsan yihiin dhammaan wixii lagu sifeeyay bulshadaasi oo la isku ururiyay oo si mahmaha ama oraha ama mataqaana hadal caan baxay loo raahdo marka haddaan nimaadno mas'aladan ka hadlayno oo ah sida ay u taalo Soomaaliya bulsho oral society waliba saas oo dhacda yani labada qaybood ee Soomaaliga iyo Ingiriiska isla socda Soomaalidu waa bulsho oral society mataqaana xataa la isku kalifin in la turjumo iyo kuwa kale la midka macnaha ka duulay yani macnaha mesela Soomaalidu waa bulsho reer baadiya oo imika magaalooyinka Soomaalidu waa bulsho mataqaana reeraa oo mataqaana qabaa'iluna orahyada soo dhani dabcan sida ku caan baxeen waxaas waqti ay u baahan tahay laakiin waxaan isku dayaa si su'aashu taalay nuxurka ku jira ana aragtideeda inaan ka hadlo mas'alada koobaad waxa weeyaan markay Soomaalida la yiraahdo bulshadaasi waa bulsho oral marka koobaad waxa meesha ka saaraysaa in bulshadaasi wax qorto dabcan qoraalku waxa weeyaan wax dhaxliya yani khibradda bulshada wax dhaxliya ay qayb ka mid yahay ayuu qayb weyn ka yahay waliba marka meesha oral timaado
waxay manaysa horta kow dadkaasi waxa ma qoraan mar haddaan waxba qorina dhaxal ma laha mar haddaan waxba qorinna haddana waxa meesha ku sii hoos jirta xusuus wadareedkoodu waa iska khuraafaad yani waxa ay wada xasuustaan daakira jamaaciyo waxa la yiraahdo bulshadaasi leedahay mar haddaan qornayn oo aan qofku markuu soo daliishanayo ka odhanaynin buu hebel baa saa qoray ama hameen hebel lagu diiwaan geliyay iyaduna waxa ay qaadanaysaa sifo wax iska khuraafaada marka halkaa la soo joogo bulsho bilaa daakira bulsho bilaa xasuusa yani bilaana dhigaala oo aqoonteedu diiwaan gashan waxay imanaysaa markaa bulshadaasi waa bulsho waxba garanayn aan ismatali karin aan iska hadli karin aan isfasiri karin so maxaa markaa imanaya cilada meesha ku jirta su'aasha qaybteeda labaad ahayd baa maxaa ka dhalanaya halkaasi orahyadaasi ma oran karno waa been yani ma fadhino meeshaan beenino laakiin waxaan u fadhinaa inaan muujino macnaha kale ee ku laran ee ka daba dhalanaya sida awoolaha mataqaana nooca awoolaha la yiraahdo waxa weyn xaq urida bihi baadil yani run mataqaana been lagu socodsiinayo waxa imanaysa markaa masalada mar haddaan bulshada iyadu karti u lahayn inay aqoon abuurto oo aan ismatinin waa in loo hadlo waa sidii banarkii hore lagu niqaashay waa in mataqaana la matalo waa in loo fikro waa in iyaga la isku sharxa مثلا waa in la yiraahdo mujtamacani Richard Burton uu yiraahdo Soomaaligu qabiil ma wax kale ma noqon karo deetana Soomaaligu ka daba qaato yiraahdo qabiil ma wax kale ma noqon karno saas oo kale ay isku xidhnaato marka ka nimaadayna weerahaasi laba qolo ka soo jeedaan yani dad ajaanib si hore loo sheegay iyo dad karaaniya dadkii ajaanibka u shaqeynayay karaani waxa lagu sifeyn jiray qofka wax bartay laakiin wax ku filan aan baran la baray wax yar xafiiska laga shaqeeyay مثلا farta qoraalka iyo xisaabta isku geey afarta calaamadood xisaabta isku geyntii kala goynta feelasha sida loo habeeyo afarta erey luqadda ajnabiga ee qofka mataqaana ka sareeyo kula hadlo wax yar oo kooban oo mataqaana mujtamac laga soo dhex sooco xafiiska ka shaqeyn karo marka waxaan oran karnaa waxa la aan baxeen warahaasi waxay ka soo jeedaan dadkaas oo marna gumaysto markuu joogay ninka ajnabiga talinay ruuxa qofka ajnabiga markii uu baxayna karaanigii uu ka tagay oo talinay maxay hadda ciladu ugu muhiimsan meesha ku jirta maxay tahay waxa kooka waxa ay meesha ka saaraysaa kala duwanaanshaha bulshada Soomaaliyeed yani bulshada kala duwanaanshaha iyo inaan kaliya toodahayn reebaadiye mataqaana xoolaleeya aan walahayn laba waxay ka soo bilaabaysaa taariikhda jiritaanka ummadda macnaha si unconscious macnaha loogu talagelin 1985 markii mustacmarku soo galay ama 1960 markii xorriyadda la qaatay dawladnimada la dhisay wixii inta ka horeeyay reerayska fariirsan oo mataqaana majmuucad qabaa'il oo hama joobadooda oo aan wax macna leh nolosha ku haynin ay iska noqonaysaa automatically marka narrative kaasi la qaado waxa kale ka soo bilaabaysaa garaadka Soomaalida ama waxa Soomaalidu taqaanaba 1970 oo 700 xilliga farta la qoray iyo wixii farta lagu qoray maxay meesha ka saaraysaa waxay meesha ka saaraysaa dhammaan wixii mataqaana nidaam ijtimaaci ama social systems ay bulshadu dhisatay ama baahiyaha joogto ama magaalaha joogto reer magaalnimadii mataqaana bulshadu kula hayd meelaha baahiyaha ka baxsan taasoo 20 magaalo waaweyn oo 7 qarni jira oo cosmopolitan oo mataqaana intaas oo ummadda isku keentay oo xarun xadaareed ay Soomaalidu lahayd laba waxa kale meesha ka saaraysaa wixii aqoon ka horeysay farqoritaanka oo ama afaf kale Soomaalida ku qoraan مثلا xilliga weyn ee musiibada dhacday waxa markaynu ictinaaqnaa ama aynu aaminay mafhuumka qowmiga ee ku salaysan isirka macnaha Soomaaliga nationalka wuxuu keenay inaan ka goono irtiga xadaariga hore aynu qaybta uga hayn yani aynu lahayn ma laakiin aynu qaybta ka ahayn oo luqado kale ku diiwaan gashanaa مثلا carabi ku diiwaan gashanaa waxa farta markii la qoray laga guuray farwaadi oo 8 qarni wax ku dhow Soomaalida wax ku qoraysay waxa soo dhan markay meesha ka baxdo waxa soo baxayna bulsho ka maran taariikh ka maran macrifo ka maran mataqaana maxaan ku raada ka maran garaad ka maran wax mataqaana bilaadan lagu soo sooci karo halka markaynu joogno waa inaynu runta isku sheegno markaan waxaan imka soo akhriino dhan waa sida warahaasi ay ugu adeegayaan dadka inaga aan ahayn yani dadka aan nagina matan laakiin inaga dhexdeena waxaan isku qiranaynaa in warahaasi qayb ahaan ay run yihiin yani
inaanay qoraalku aanu nagu faafsanayn inaanay diiwaangelinta macrifadu aanu nagu faafsanayn laakiin nuqdadaan ka duulayna waxaan boontigaan aanu adkeynaya waxa weeye inaanay taa macnaheedu ahayn inaan ebernahay yani inaan xadaaradda sifir ka bilaabayno inaan nolosha sifir ka bilaabayno inaan mataqaanaa wax inagu horeeyaan ya sifir iyo eber isku dhig يقرأ الله هذا معناها ويل مرانو مالنتي إنك عادة أسركين ولا أركين مرين هدي تنا وحلقوش ولا يدي سلا سو كلنا على حالة دول إنه مركا حنكسو جايين حنو بهنا إنه لبا مركا كجورنا إنه متصدحات اعتمادنا منهم متقان ضد قوم صو بدن صو صاري مركا ما تعدو كل نوع منهم متقان معرفة بين ديوان جلي سلا كلنا منهم ضد إبرة وهمج متقان وحوشة oo yani xoolaha lamida labadaas oo isisaaran waxay keenaysaa inaanu taariikhdeena xambaarno irtiga mataqaana mujtamaceena dhaxalkiisana xambaarno sidoo kalena aynu xadaarada indhaha u furano oo aynu wax ka dhigano ummadaha kale iyo aqoonta bashariyadu mataqaana ay diiwaan gelisay intaasna horta ku soo koobaya waxa dambe niqaashkan ugu tagayna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa mahadsantahay cabdullaahi raage dhankayga bidix iga raalli noqda deg deg badanoo haddaa ay jiray tacriif kama bixin ama idinma barin paneliska cabdullaahi raage wuxuu bartay economic and political science jaamacadda camuud sidoo kalena maxamed faatix isagana master wuxuu ku diyaariyey lowga markaan waxaa u gudbaya maxamed faatix sayidka wuxuu aad u falaqeeyey bulsho oral ah ama oral society-ga waxay tahay taariikhii Soomaaliya laga soo maray iyo hadda marxaladda ay marayso maxamedna wuxuu noo falaqayn doonaa civil society-ga ama bulshada rayidka waxay tahay marka maxamed waxaan weydiinayaa si kooban inuu noogu sharaxo isagoo waqtigana beeqaaminaya idinkana ay idin furi doono maxaa lagu qeexi karaa horta bulsho rayida yaase ah oo loo aqoonsan karaa marxaladaha ayay soo martay bulshada rayidka ee Soomaaliya marka si guud taariikhda loo fiiriyo maxaa hortaagan oo caqabada ah door nooce ayaa laga ciyaari karaa si kooban inuu maxamed isku kaay raaciyo kadibna idinka idin furi doona insha Allah maxamed soo dhaw السلام عليكم آدي هذا ما سنتها محمد إن عبد الله راجن هذا نوم هذا علينا يا أو ردع في عن إن أنا هذا وح قصي صلين كرنو إنه سوجيدي إن سيدا سؤالها سيدا سؤالات بالله كلا دقي إن وحن إن concept كأمر مفهوم كإن civil society كأما بالشدة الرئيد ك وكلا قاعدة دونا على بحبه أنا فيرين دونا مركه هرب القحيتان سون قن دونا كديمنا وحن سكدي دونا إن أنسي ونجوس وداد جيو إن واقع الصومالية أنا كهذي دونا مراحش وصومري إن مركي لقيحايو concept أمر مفهوم أو civil society أو كله بالشدة الرئيد أو كله أو concept يعني حرير لا علوم بالشدة إن طبعا نحن مركز تا يعني أخذوا عيا ومركز تا يعني ونقول أول يا قابك أي تاي ظروف مركز النور يعني مركز تاريخ الآن أو حس بدلها يمر بحلقة يلا أو إني كاجن وحكوا حرة يمر بنقنيا إن وصوم مري طبعا إن قيتان كاسي مراحل في الدول اللي واحد جرتي من شوين ك أي وبعناين إن وود الدول دمو يبلشده إن لك على سعره أو يجرتو إن حقيقي إن يجري كرتو بالشو كم أحسن أود الدولة النملة والدولة ديو تاجن إن بالشو غير بجرتو مرك حلي على سجاء وحاها إن بالشو ريد إن أوديه بالشو يحلي على جري أو لينا إن كلام قهص محان وقرطويو إن حلي على جري أو ديدنا إن كغير بجرتو إن بالشو أكتفا أو حقوق ذي وحيدة أول وليس مراحل كذا أو ضبط إن وحاي ما حلي الله بعضي إن دولة لقى فرق بحيو كي أود سياسية دي أود دقالة هل جعنا ينقشوا إن نبعت بدن أي اللي ده وتاريخ عن بشوين كأدون كإن بدن أي لسه تعالي مركا أيضنا إن طبقات دي اللي مركا عن تدا جعان تكو هيسي الدولة ده كسو في دي سي إسكا ريح هيسي أو إسكو دي سي نكلاص بحضر عن تدا ده أي جاس أي وحي أهاين بالشريد إن كدب دولة ديكتاتور كمركي بالشوين كيكسو بحيين واللي من مرحلة اللي هي قفك بين آدم كمواطن نمو أي حقوق كلية هي كم لها حقوق إسر إيو ديك إيو قبيل إيو مؤكتة هي طول كم لها لكن مواطن أهانشها ويهي أي حقوق كلية هي كدي بوحة نقطي بالشريد دتك سؤال ورصدي مواطن أهان سي حقوق راسية أي أسران أو يعني قيحان سيدا هذا مركز كدري ميسان يعني هرمركاس وقت يقدر سوقاتي
waxa xiriir ka dhaxeeya bulsho rayid iyo mafhuumka dawladnimo iyo bulshada qaabka yani aan dhigi karno cudwiga ee hoose u abaabulanta unugta hoose ay ka kooban tahay xiriir baa ka dhaxeeya xiriirka marka waa mid sida soo socoto noqonaya yani bulsho rayid waxay ka dhalataa shakhsi ka soo hoos baxay unugtii uu ka dhashay oo isaga uuna dooran kaliya wuxuu ku dhex dhashay qofka reer beel ama family buu ku dhex dhashay qofka markuu soo gaaro marxalad uu go'aansado inuu majaalka caamka ah soo galo isagoo fardi ah afraad kale isagoo kala ah oo ina reernimo ka dhaxaynin waxba ka dhaxaynin dawlad horteed yani intay yimaadaan ay isku dayaan inay xuquuqtooda ay ka riixdaan ay wax la qaybsadaan markaas ayaa waxaa la dhihi karaa marka waxaa jirta meesha yani bulsho rayid ayaa jirtaan dhihi karnaa sidaas awgeed marka yani laba arrimoodba way tahay kow qofka bini'aadamka dawlad marka hore iyadaas awood siyaasadeed leh oo xuquuqdiisa markaa gacanta ku haysa oo marna la xisaabtamaayo marna taageerayo marna wixii xadguduba ay samayso iska caabinayo ayuu hortaagan yahay marna qofka bini'aadamka wuxuu hortaagan yahay famil ama qabiil sida aan Soomaaliya nahay oo kale uu markaas isku dayayo inuu ka soo xiroobo oo shakhsi ahaantiisa markaa nin u dhaqmi karo oo qof yani ku howlgali karo inuu yahay labada yani siba way noqonaysaa haddii aan tan Soomaaliya u soo daadegna anigoo isku dayayo inaan waqtiga koobo waxaan dhihi karnaa intii aan xorriyada la qaadanin gobonimada aan la qaadanin waxaa abuurmaysay oo jirtay ifafaalle bulsho rayid waxaa jira dad Soomaaliyeed oo ina reernimo isu keenin dhalinyaro ah muwaadinimadooda iyo rabitaanka midaysan ay u qabaan yani inay ummad yani goba ay noqdaan ay isu keentay ayaa jirtay marka kaliya marka dadkaas imaanshahay isugu imaadeen iyagoo marka aan reero ahayn laakiin muwaadiniina kadibna ay isku dayayeen awood siyaasadeed oo markaa ka xoog badan oo dhulka haysatay inay dhulka yani ay gobonimadiisa uga soo celiyaan ayaa waxaan dhihi karnaa yani waxay inay ahayd ifafaalle yani amaba run ahaantiiba ay ahayd bulsho rayid oo active oo doorkii bulsho rayid looga baahnaa ciyaaray laakiin markii gobonimada la qaatay ee dawladdii dhalatay waxaa dhacday laba mushkiladba way dhacday midii koowaad dadkii bulshada rayidka ahaa iyagii baa dawlad noqday SYL ama Lego iyadii baa dawladdii awoodii siyaasadeed ee u soo xarootay kow midda labaad waxaa dhacday qabiilkii oo markii hore aad moodo inuu ka baxsanaa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed waayo dadkan isu yimid hal reer ma ahayn laakiin haddana markii dawlad la noqday qabiilkii baa siyaasadda ku soo fakaday yani danta waxay keentay in qof walba uu qabiil walba yani uu xisbi samaysto ilaa 80 xisbi wax kor u dhaafaya dalka uu yeesho muddo dhowr sanadood gudahooda marka halkaa waxaa ka muuqata yani qabiilkii iyo siyaasaddii iyo bulshadii rayidka markaa dhalatayba inay isku wada biyo shubteen oo isku milmeen oo isku dhalaaleen natiijada kaliya marka ee arrintaasi nagu keentay ama keeni lahaydba waxa waaye inuu dhasho nidaam dictator marka maadaama wixii una kala baxsaneen ba hal shay uu yahay marka awood siyaasadeed oo bulshadii yani aan u ogolaanin inay xitaa reero ahaato aan u ogolaanin inay ururo bulsho yeelato dawladdu iyadu wax walba isku tahay heer aan gaari karnay yani aan dhihi karnay aan la gaaro in xataa fardigu ama yani qofka shakhsigu ah dawladdu inuu wax ku yahay isaga jiritaan gaara ama fikir gaara una yeelan karin la gaaro waa hashii wadda ee markaa furnayd tiina waxay keentay si toosa yani in wax bulsho rayid la dhaha yani albaabkeedu soo xirmo kaliya bulsho rayid maaha waxaa soo xirmay dhaqaale furan inay dadka yeeshaan soo xirmay albaabadaa xirmay marka muddo 20 sano gudahooda waxay keeneen haddana burbur cusub bulsho markaa samaysantay 20 sano uun jirto inay haddana mar labaad zero kusoo laabato dawladdii meesha ka baxday waxaa ka dhashay natiijo inkastoo dhibaato fara badan laga dhaxlay haddana yani waxaa banaanaaday boos weyn baa banaanaaday dadkii awal iska fadhiyay oo wax walba dawladda ka sugaayay dhaqaalihii dawladda u haysay ayaga afkaartooda xataa ay dawladda u sameynaysay dawladdu ay hanuuninaysay iyaga ay wax ku shubaysay yaa hal mar dawlad la-aan yani soo baxay waxay ku khasbanaadeen marka dadkii haddana maadaama bini aadam yihiin dad active yani dadku yani sida hadda hore aan usoo sheegnay bulshadeenu wax kastoo dhib aha haysta laakiin waa bini aadamkee kale la mid yihiin yani mar walba mushkilad soo waajahdo yani waa inay si uga lug baxsan lahayn inay ka shaqeeyaan marka way dhacday waxaa dhacay dadkii inay u banbaxaan in ay danahooda ka wada shaqeeyaan in badan waxaa dhacay dad Soomaaliyeed oo isku beelahayn isku qabiil ahayn inay isu yimaadaan danguud ay ka shaqeeyaan haba ka bilaabeen wixii ugu basicsanaayo serviceska ahaa iskuulada aan ka soo wada baxnay iyo jaamacadaha aan ka soo wada baxnay waxa wada ognahay yani dhamaanteen in noocaas ay ku sameysmeen sidoo kale waxaa abuurmay ganacsi xora oo aan dhihi karnay yani tallaabo
يعني أساسية أنتوا نبلش الرئيس سميسمين دولة ديمقراطية سميسمين وحيابها بالله وهو يعني قصب أي تهاي إن مركه هرد عن وحاكم ده إنه سميسمه يعني دقالة رأسمالية وأنا نجي يعني دقالة أول سياسية نكب أحسن إن أولك أي أساليب تهراء دتك استعمال الجري نكب أحسن إن دتكون أي ترتن حرة يجيلي كران إنه سميسمه إن لبلا أريمود مركه هدي لهالي إن waxaa yani la gaaray inay dib u dhalato bulshadii rayidka ahayd yani dhimatay inay dib u soo noolaato waxaan dhigi karnaa marxaladii ugu sareysay oo bulshada rayid door ay ciyaarto wuxuu ahaa shararkii laga soo bilaabo carta iyo wixii ka dambeeyay markii la yimaaday in shir dib u heshiisiinta la qabto kaliya hogaamiye kooxeed in qori wata kaliya una fadhiyin laakiin dad badan oo Soomaaliyeed oo bulsho rayid ah yani kategoriga magacaas leh ku fadhiya meesha oo ku haysta matalaad siyaasadeed gorgortan siyaasadeedna wax ka galaya in la helo marka waxaan dhigi karnaa laftirkeedu waxay ahayd guul muujinaysay in uu jiro bulsho rayid oo active oo yani doorkeedii ciyaaraysa laakiin waxaa imaaday oo dabcan waxa markuu soo socdo caqabad fara badan buu la kulmayaa siyaabo buu u sameysmayaa mucaayana sida hadda ugu caansan ee ugu raa'idsan oo maanta yani aan dhigi karno bulsho rayid way tahay anaga u wada naqaano waa ururada NGOs ka la yiraahdo ama aan ahayn xukuumiga dawladdu ayna lahayn oo inta badan qaab mashaariic ku shaqeeya mashruuc deeq bixiye ajnabiya u bixinaayo ku salaysan yani aqoonsiga marka aan bulsho rayid aan ugu aqoonsanayno in ay tahay kaliya noocaas iyo qaabkaas ay tahay waxa ka dhalanaya laftirkeeda mashaakil ka dhalanaysa yani waxyaabo u baahan in la baaro oo yani baaris cilmiyeed lagu sameeyo u baahan ayaa ka dhalanaya arrimahaas koo waxa ka marka hore mushkilad qeexitaan yani bulsho rayid waxa ognahay waa wax yani mafhuum taariikh dheer leh siyaabo kala duwan loo qeexi karo aan u nugweyn marka hadii lagu soo koobo sidan hadda aan soo sheego NGOs lagu soo koobo waxa meesha ka baxayo yani iskaashatooyin iyo ururo iyo dad bulsho siyaabo kala duwan u abaabulan hadda dalka ka jira laakiin door weyn ciyaara ayaa meesha ka baxayaan waxa kamid ah waxaan ognahay kaba soo qaad dadka xirfadlayaasha baaburleyda oo kale yani ururo leeyihiin Soomaaliya ganacsatada waxbay leeyihiin door weyn ayay ciyaari karaan dadkaas ururo bulshana weeyihiin yani ururo bulsho rayid weeyihiin marka in kaliya aan ka soo qaadno inuu yani noocan NGO kaliya uu yahay doorkaas weyn ay bulshada dhinacyadaas kala duwan ay ciyaarayaan ayaa meesha ka baxaya arrinta labaad waxa waaye arrin aan dhigi karno structural ama bunyawi ama mushkilad yani qaabka ay u taalo qaab dhismeedka khuseeya karaale hada waa luqadii wax lagu soo bartaa naga tambatay ururo bulsho waxa asalka ah in bulshadu iyada oo isku tashatay waxay u dhaqaaqday inay tahay oo awood ay ku dhaqaaqayso inay awood bulsho tahay haddii marka ururadeenii bulsho ay ku soo koobmaan deeq bixiyo lacag uu bixiyo su'aasha imaanaysa marka waxa ay tahay intee in leega ururadaas waxtar yeelan karaan isagii hadeena yani wax sidooda yani u taagan oo iyaga isku filan amaba iyaga isku filnaadeen amaba dadka hantida leh dalka jooga yani ha taageereen ugu dambeyn arinta baaritaanka u baahan waxay tahay dadka cilmi baarayaasha inay fiiro gaar ah u yeeshaan ururada bulshada rayidka hadda jira ama NGOs ka hadda jira waxa ognahay focuska wax u saaran ama ay xooga saarayaan waxyaabaha masiiriga ah inta badan uu ka maqan yahay waa sax waxyaabo badan oo muhiim ah ka shaqeeyaan laakiin haddana waxyaabo masiiriya oo qaab dhismeedka dawladnimo calaaqa leh oo xiriir leh maanta marxaladda ummadda Soomaaliyeed marayso iyo muwaadinimadeeda iyo xuquuqda iyo dastuurka hadda la qoraayo iyo ku meel gaarka ah weli aan loo coday waxyaabo badan oo masiiriya waxa jira ka maqan inta badan markaad fiiriso activity-ga NGOs ka maqan taas marka waxay keenaysaa su'aal practical ama yani amaliya oo imaanaysa yani urur bulsho hadii uusan arintaasi ka hadlin uusan arintaasi focus activities una ku soo darin sidoo uu sii jiri karaa bari waxa ognahay waxa xiriir dhow ka dhaxeeya jiritaanka ururo bulsho oo door yani mugli ciyaara iyo dhismaha caafimaadka qaba ee dawladnimo xiriir baa ka dhaxeeya dawlad caafimaad qabto waxa ognahay ma dhismi karto iyadoo ayna jirin ururo bulsho rayid iyadoo ayna jirin bulsho nool oo markaas iyada xuquuqdeedii ka gorgortonta oo markaas iyada masiirkeeda yani wax ka xadida kaliya aan noqonin object ama iyada wax yani mafcuul bihi oo iyadaas wixii kor uga imaanaya lagu xoog lagu marsiiyo marka maanta xilligan la joogo dadaan kusoo gabagabeeyo
soomaaliya waxay marayaan marxalad aan dhihi karno marxalad yani dib u curasho yani dowladda dib u dhalanaysaa soomaali 60 marxalad haday joogtay 90 marxalad kale joogtay maanta tu saddexaad oo mustaqbal fog oo yani sanado badan oo soo socda wax ku saleysnaan doonaan ayaa hadda dhalanaya marka waxaana runtii nasiib wanaag yani bulshada rayidka maanta ay haystaan fursad ay wax badan kaga ciyaari karaan doorkooda waxay haystaan dawlad iyo bulsho gaar u kala taagan bulshadu waxay u abaabulintahay aan ognahay reero inkastoo xataa reeruhu ay yani sida ugu fiican in bulsho u abaabulnaato ayna ahayn gaar ahaan markii siyaasadda la joogo haddana inay bulsho gaar u abaabulin jirto naftirkeeda wax badan oo wanaaga ayay leedahay sidoo kale dhaqaale aan dawlad saarnayn dadku wada leeyihiin ganacsi xor ah iyaduna waa jira oo awood siinaya dawladdu inayna yani go'aamo guraacan qaadanin oo dadkii maadaama dhaqaaluhu uu xoog yahay in awood macnaha ay baahsan tahay ka hadlaya marka waxa su'aal ah marka maxaa dawra oo ay ciyaari karaan marka maanta oo ciyaari karaan bulshada rayidka ururadiisu ay ciyaari karaan idinka dhisi doona saddex su'aal ama saddex faal kaliya dhinacana hal qof dhinacana hal qof dhanka kalena ay ka imaato inta badanna su'aaluhu hal ku saleysnaadaan mawduuca injeediyaan barnaamijka oo hay bulshada oo kumid ah Soomaaliya may boleeray bulshada oral society أنا شخصيا أنا ما بأمن سنها مئهيني والني والي taasna ma basheena saantana niwali nasuun ogsan way baan bulsho way haynay dadka dugsan markii hadhamayaan dawladda daraasa tuulooyinka baadiyaalka oo heraasa bahadafka baadiyuuro wal habara geed hoostisa walna hani barajari mahayn intana raadin hani hiro mustandin ni hiro ni suubi hay dhagan soo raadin ana oo mahayn bulsho wal akhriyaasa wal qoraaso wal ku shaqeeyaa hayn ma baan sabab baan kornaha intiyo idaacado BBC oo kale dadka markii dhagansadaan way jiraan goobasha heega la ka dhamo intii oo miisko la saaro raadi la ka dhagansada idaacada dadkii habahan binaameel iska koono in si sheegan taasna meeshan tahay ma dadkii haana wal qorow kala shaqeeyay mahayna ana ma baaminsan markuu su'aalay ka wala faday saannaga korna dad oo wal qoro walna akhriyo koro xaqiiqadan weydii kor wala lahan qorshaleedii on ka ekaane ku dawa galayaan taasna may baa isar kore saan buraarujidon hela korna dad wal akhriyayaan dinu wal akhriska hoobuna galna may baa helaan intii uu weydin xaqiiqada ku dibna may baa nagadaan wal qori waan inaan ma santin jeediyay programka aan waxaan oran karaa ciwaanka markaan dib ugu noqdo base u ahaa lecture-kooda sida mar walba laga sheekeeyo markii laga hadlayo suugaanta Soomaalida bulsho oraaheed waxaan filayaa ilaa hadda wax qoran oo suugaanta markii laga sheekeenayo ilaa hadda ma jirto marka waxaan oran karaa meelaha u baahan in la sameeyo si looga guuro bulsho oraaheed bulsho horumarsan ama modern bulsho loo gudbo waxyaabo muhiimka ah loo baahnaan karo waxaan isleeyahay waxa kamid ah center archive sameeya oo loogu hagaago tusaale kale suugaantii history-gii waxa badanaa laga sheekeeyaa abwaaniinta Soomaalida iyo gabyaaga marka dib u soo qaato like Sayid Maxamed Abdullah Xasan mustacmarka markuu la dagaalamayay gabay caan ah baa jiray oo adaa koofi loo jiito dunida joogana marka ilaa hadda waxyaabaha muhiimka ah oo u baahan ardayda jaamacadaha iskuulada in la helo archive dib loogu noqon karo dadka ilaa hadda maqal ayaa berdhawada waxaan maqlay gabay ka tarjumaya afkaartii sayidka oo calculation ah I think inaysan qorneen waxa loo baahnaan karaa in la qoro taas mid waa mas'alada ka sheekeeyay Ustaad Faatix oo ahayd bulsho rayid markaan qeybin waxyaabaha soo gali kara waxa kamid ah ururada siyaasadeed waxa is oran karaa meesha looga guuri karo modern bulsho ah loogu guuri karo waxa qayb ka bridge-ka waxa noqon kara civil society-ga naadiyada ardayda clubska iyo sidoo kale ururada siyaasadeed marka waxyaabaha loogu guuri karo bulsho oraaheedka loogu guuri karo oo BBC-da sheegtay VO-da sheegtay loogu guuri karo waxaan isleeyahay dhowrkaas arrimood in xoog la saaro waxa base-ka u ah waxa sameyn karana markii laga soo tago bulshada waa dawlad marka taa in la raadiyo si loo helo arrimahaas kale waa maasantiin magacayga waa Firdawsi Daar Cabdiraxmaan waxaan daba socdaa mawduuca walaalkii raage khadiijana hadalkeedii ahaa bulsho aqris sidaan ku noqon karnaa waan isla mawduucaas yani caalamul islaami oo dhan
sidee yani looga dhaadhiciyey maxayse tahay sababta aan oga dabagali la-aanahay bulshada reer galbeedka ee naga dhaadhicisay inaan nahay bulsho hadal ayadoo aayadda qur-aanka ugu horeysay inoo soo degtay iqra bismi rabbika alladii qalaq oo yani marka koowaad wixii naloo sheegay inaan wax aqrino inaan wax aqrinana ay ka dhigan tahay inaan wax qorno yani anagoo ah bulsho wax aqriso oo wax qorto sida najerkeena ah maxaa haddana nalooga dhaadhiciyey inaan nahay bulsho hadasha oo yani aan u aaminay inaan nahay bulsho hadasha hadday dhacday inaan aaminay maxaa loo laayahay weli aqoon-yahanadeena looga laayahay inay ka fakeraan sida looga bedeli lahaa bulshadeena fikirkan ah fikir bulsho wax aqrisaan nahay maadaama uunan ahayn maxaan u arki laanahay inaan qaadano inaanan ahayn oo dadkeena oo culimo diinka iyo dadkeena cilmiga ahna uga fakir laayihiin inay usoo saaraan bulsho wax aqrisa wamaasantihiin maasantahay Firdus waa wadan karnaa kaamirada microfonkeeda wuu noo shaqeynayaa dhankan wax su-aal qabo ama faallo waxba uma jeedo may qofna ma hayno iska gabagabaysanana sheekh waxaan ka jawaabi doonaa labadii su-aalood oo mid jamiila ay ahayd sidee lagu heli karaa bulsho wacyigeedu dhisan yahay isbedelna qayb ka noqon karaa ayagoo wax aqrinaya oraya si guudna wacyigooda u dhisan yahay sidee dib maaragtay qayb uga noqon karaa bulshada rayidka iyo si guud kordhinta wacyiga bulshadaba nuxurkeeda kuu soo aruuriyo marka waxaan ku horumarayaa sayidka waktiga aan aad u ilaalino waxaan geli doonaa barnaamijka qaybtiisa kale wadan tahay si aan waqtiga u koobno labada mawduuc ee su-aasha ka timid marka laga tego committee oo isla xiriiraan yani oo laba mawduuc isla xiriiraan marka laba qodob baan kusoo koobayaa mid waxa weeye sidee mataqaanaa bulsho wax qorta oo wax akhrida oo ku abuuri karnaa laba ayaan anu kala qaadaya masalada mid waxa weeye si guud mujtamaca qof walba inuu ka baxo ummidnimada qoraalka iyo akhriska barto oo akhriska caado ka dhigto oo tacliintu faafto taasi waa mid kale waxaa jirta bulshada intelligenceyadeeda macnaha dadka aqoonta u sameeya waa taan islahayna taasa labada muhiima yani bulshadu hadday boqolkiiba boqol aqoonta imika ololiya soomaaliga dadka wax loo baray yani qof kasta geedku jooga loogu tegay fartaa la baray qof kasta gurigu jooga loogu tegay qoraalka la baray akhriska la baray laakiin taa bedelkeeda ma dhalan mataqaanaa mashiin aqoon soo saarid ma dhalan yani institutions ama hayado cilmi baarista aqoonta mataqaana diiwaangelinta waxyaabahaasi ka shaqeeya ama dad mataqaanaa level qof iyo laba iyo saddex maaha boqolaal iyo kumaana oo fiilka u lug baxay labada taa ina ciilaysaana waxa weeye faqriga naga haysta aqoon soo saarka marka masaladaas anoo soo kala qaaday waxa muhiim ah inaan soo darxino su-aasha institutionska in la xiriira aqoonta ama kuwa waxbarasho ahaadaan ama kuwa wax soo saar ahaadaan ama kuwa dowladeed oo la xiriira ahaadaan sideeba masaladaasi loogu ololeyn karaa in la abuuro mashiin aqoon soo saar oo qofku qayb ka yahay laakiin uu helayo qofku investment uu helayo mataqaanaa centers uu helayo lab uu helayo logistics uu helayo mataqaanaa mujalaad mataqaanaa magaasiino cilmi oo wixiisa nashriye uu helayo platformyo uu kaga doodo aqoontiisa oo falcelinta dadku ay u anfacdo inuu sii horumariyo aqoontiisa masalada labaad fikradda su-aasha labaad commentka labaad ahaa sidee laynooga dhaadhicinaan bulsho hadashanahay ama sidee maxaynu inagu iskaga maxaynu inagu masalada wax uga qaban lahaynay dabcan marka laga yimaado inaad mabda uu jiro maalan inaad aayadda qur-aanka ugu horreysay soo degtaa iqra tahay waxaa jira iyaduna waaqica mujtamacu ku nool yahay oo aan saacidaynin in qofka lagu tarbiyeeyo akhriska aan saacidayn qofka lagu rabeeyo mataqaanaa qoraalka labadana maaha waxaan ku qanacsanahay maaha laakiin waxaa ku noolnahay marka waxaan ku noolnahay se wax uga bedeli lahayn wey su-aashu aad bay mahadsantihin cabdullaahi raagi mahadsanid maxamed soo dhowow waxaan rabaa inaan xoogga saaro jaamacadaha waxaan dhihi karnaa waxaa udubdhexaad u ah markii laga hadlaayo yani cilmi baaris iyo aqoon markii laga hadlaayo waxaan is dhihi karnaa waxaa udubdhexaad u ah
jaamacadaha waxaan u baahannahaa isleeyahay aniga runtii kacaan oo dhinaca jaamacadaha ah oo lagu gudbo xitaa jaamacadaha soo saaridda ay arday soo saarayso sidii hore yani ardayda meesha fadhiday noogu sheegeen oo loo gudbo in ay soo saaraan cilmi baarayaal ay soo saaraan waxaan ognahay jaamacadaha kulligeen waan ka wada baxnay aqoon badan waan ka baranay laakiin waxyaabaha aadka yani nooga hooseeya waxaa ka mid a researchka waxaa lagu magacaaba ama cilmi baarista yani xataa yani assignmentyada aan qorayno iyo thesiska iyo bugaagta aan samaynayna xataa in badan oo ka mid ah yani wax methodology gaar ah oo aan u raacno ama xisaabtamaayo ama lagu tababaraayo ayaan jirin marka waxaan aaminsanahay aniga meesha haddii ay wax weyn iska bedelaan runtii mustaqbalka bulshada Soomaaliyeed aqoon ahaan wax weyn ka yeeli karto ka saameyn karto waxa waaye jaamacadaha iyo muassasaadka kale oo akadeemiga ah macaahidda iyo goobaha kale waxbarashada marka intaasaan ku soo koobayaa way mahadsan yihiin Maxamed Faatix iyo Cabdullaahi sessionka labaadna intaasoo noogu dhawaaday